قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب. waxaan la hadlayaa golaha baarlamaanka. golaha baarlamaanku waa majliska ugu sareeya ee sharci dejinta. waa meesha ugu sareysa ee nool ee wali dawladnimadii ay ka sii jirto. am lahum shurakaa'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah ma waxay leeyihiin kuwa alla wax la wadaaga oo sharci u dejiyo dastuur u dejiyo wuxuusan ilaahay idmin subhanahu wa ta'ala marka waa shurakaa haddaad rumaysantahay jihad kala wax dejin karta shirki baad ku kacday waa mas'ala shirki ah limaada لأن الله سبحانه وتعالى أمرك سيدو أوليه وأمرك أوليه ألا له الخلق والأمر هذا ترى عيد كلا وأمور كرتا وشرك هذا ترى النظام كليه الدستور كلا الضمادة أمر كودية تلاد وهذا إسكالنا وشرك حاجات كالجيني هذه مسألة ما كولا لي الأساس وعدها يوقع حنتها جهة وحشدين كرتون نظام كذا اللي قادم كرا ما يجرت إلا قالوا يمويه ساترادت دولتها النظامية أي دجتين أما أيوها كليمة الرجال بيت لها كسوقاتين أما البرلمان أي سميستين هؤدج شيء نظام كالنوع سوكري جهوين كدجين يهي وشرك استعدوه قرآن كي سنة النبي قال صلى الله عليه وسلم وكان لما استعدوه قال لما عدوه شخص ما قالوا يا مثل ما قالوا يا مسألة كلوية لكن نظام كميشة يا الله والنظام شرك يا كفر بنص القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مدى الله سمرك معها قرآن كسيدو اتباحي سنة اتباح إلا مروي معنا سيدا سويا جهوين كمثل الحق إلهي فوضي وحاكمنا وهذا يعني أدونك أوطن هايستاي جهوين كان لو يقانو يعني المجالس البرلمانية أما مجالس التشريع يعني برلمانك يقول ياشيسو waxa loo sameeyay waa majlis la yiraahdo jidayn baa la dhahay jidayn wuxuu jideeyaa majliska waxa la yiraahdaa golaha sharci dejinta soo saasba ilaa waxa weey golaha sharci dejintu macnaheedu waxa weey xalaalayn iyo xaaraamayn buu leeyahay hadduu maanta baarlamaanka ka soo baxdo masaajidda hal la dumiyo waa in la dumiyo khamradu waa xalaal hadduu soo saaro khamradu waa xalaal zinadu waa xalaal hadduu soo saaro waa xalaal liwaadkuha waa xalaal hadduu soo saaro baarlamaanku waa xalaal waa jiho ilaahay xaqiisii doobtay wey jihada noocaas oo kale ah marka in la hoos joogo ama macnaha waxa weye nidaamkay dejisay ummadda khalqiga lagu maamulaayay ama la rumeeyaay wax jira inay tahay waa kufri cadw marka haddaadan wax kale qaban karaynin ku kufri diid ma rumaysnide qalbigana kana wax kale ka qaban karta hadayna jirin hawo hoggaansan inta waa inta ugu yara qaban karto hadda wax ka qaban kartana ka qaban macna waxa si aad nasiib xuma ilaa ayadoo mas'aladu ay saa u cadahay oo majalisu tashriic ay tahay majalisu kufri ay tahay haddana inay wadaadadii u kala dhuumanayaan anigu masalada fahmay masalada inuu loo kala dhuumanayo oo nin walba uu leeyahay reerkaygii ha igay war xajal lagu geyn hawaan ku dhacday meeshaad ku sii socoteen u tartamaysa ee dhaqaalaha ku bixinaysa ma garanaysa soo majliskani majliskii xaqi ilaahay boobay ma aha soo majliskaas kufriga nidaamka kufriga dejinaya ma aha markaad dhex fadhido waxna aadan ka qaban karin xageed ku socota adiga maxay tahay wadaadnimada iyo diinta iyo waxaad sheeganaysa maxay mas'alo runtii aad iyo aad gariib u ah waxaa keenaya wax kale ma aha ummaddu diintii bay ka fogaatay oo in badan oo ka mid ah waxaa ka qaalib noqday wax kale ma ahin hunguri unbaa ka qaalib noqday markaasaa diintii la gadanaya macna si fudud looga dhaqaaqaya قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه حاربوه يا